xaflad si qurux badan loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Mudane Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimadda Norway. xafladdan oo soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu horreyn waxaa hadallo soo dhaweyna ka soo jeediyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Oslo ee ka soo jeeda Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya. marka hore waxaan soo dhaweynayaa oo u mahadcelinayaa booqashada soo booqday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose walaalkeen Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur. Cabdulqaadir runtii wuxuu ka mid yahay dadka rasmiga ah ee aan meel ku soo wada kornay. runtii waan ku faraxsanahay in uu hoggaanka ama maamulka gobolka asaga uu maanta hogaamiyo aad ayaan ugu faraxsanahay. taas waxay noo muujinaysaa maaragtay in xilligii la gaaray maaragtay dadka deegaanka inay in walba gobolkiisa maamulo oo weliba si sharaf leh ku maamulo aad ayaan ugu faraxsanahay. gudoomiyaha waxaan ku leenahay soo dhawow. waxaan soo dhaweynayaa oo aan codkayga ku darayaa codka jaaliyadda gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Mr. Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur Dr. Siidi oo nagu soo booqday dalka Norway gaar ahaan caasimadda Oslo. waxaan leenahay doctore gudoomiye soo dhawow waa jaaliyadaadii oo ku soo dhaweynaysa. mudane gudoomiye jaaliyaddu waxay diyaar u tahay inay kelmadahaaga dhageystaan kuna soo dhaweeyaan. intaasi kadib ayaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay gudoomiye Cabdulqaadir Siidi oo isagu ugu soo gudbiyay jaaliyadda salaan qurux badan oo uga siday madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu kaloo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Mudane Cabdulqaadir Siidi uga warramay jaaliyadda xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba sida loogu baahan yahay guud ahaan qurba joogta Soomaaliyeed inay dib ugu soo noqdaan dalka ayna ka qayb qaataan dib u dhiska guud ee dalka Soomaaliya khaasatan buu yiri kuwa iyagu ka soo jeeda gobolada Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud uu yiri jaaliyadda Soomaaliyeed gobolka Liimahan iga gaarsii salaan diiran maadaama wafdi ninkii Axmed Madoobe waxa loo diray ninkii gudoomiyaha Jubba asna waxa loo diray maxaan ku leedahay Copenhagen Denmark anigana halkan Oslo kulliiba waa sii socona ilaa Sweden inaan tagi doono laba Germany casuumada badan ayaa la falida salaan horta madaxweynaha in soo diray iga gudooma gobolka Shabeellaha Hoose غني عن التعريف وواحد إن إدفسر أبو بهنتين معه لكن حوجه سنة أما بلوين إنك جد بي عالم الإنترنت يجرو هذا وحلاقي يابا أخبارات قارن أنا هاي هنا دينك هايسان مشكلة ده تاجنا دي شيء كصومالية أما محن كونفرت صومالية كونفرت صوماليا هديو محن ديري قبل Shabeellaha Hoose هل ملوك جيسا محاوي تعصنا محاوي أقوياء هنك وإن دي وكربون وإير كربون دي صوب بعض يوروبا يسوق شيء أمريكا أستراليا واحد قصة مركا أنا قاتين أبو جاب أبوه هو مركا فإذا مركا ساس أكل هدنا لأن يريد يكبحين ترهيبي وحبا لقلي أما قدامك للادي أما مقدشها لقلي لأن يريد قبل قوح عيدا قرطها لواي مركا عيدا ديجان حد وحارنا إنا فرنا وحنا الله فري حريدي اللي يجري بلدوغلي الله فري إن إذا ماذا قبل Shabeellaha Hoose dadkii deganaa iyo dadkii u dhashay si kastaba u qoray inay ku xaroodaan meesha oo lagu tababaro ciidankaas in gobolka loo qaadano hadana inta lagu soo celiyo gobolka dhaxdiisa ciidanka deegaanka hadda boqol qof degmo walbana in booliis ahaan inay u shaqeeyaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada dawladda waxaan kaloon wadnaa oo codsi aan gudbinay oo aniga aan qoray odayaasha salaadiintii gobolka Shabeellaha Hoose iga qaadeen warqad ah oo madaxweynaha hortiisa laga codsaday markii yimid wafdigiisa in xarunta tababarka ceel jaale la furo xero tababar ah booliis ahaan militarigan sharciga jira federalism waa leeyahay dawladdu waxyaalaha ay shirka ku tahay gobolada waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida militariga oo kale arintaasi kulliita waa gudbinay aniga odayaasha ilaa haddana jawaabteedii waa sugaynaa annaga dad sida Europe ay sponsorship u bixisay America u bixiyaan oo shaqaale dad u baahan yihiin ayaan anagu ugu baahnin weligan sponsorship aan bixin jirnay waa la socotaana kaliya markii la qodaay jim badal bukaasa iyo maxaan ku radaa ninkii Julius Nereri ilaa dhulkaas agreement la galayo maxaan ku radaa dadkii kanaalada qodaay iyo beerahaas falay kulli waxa laga Central Africa iyo East Africa laga keeni jiray ko dadka hunuuda ah iyo Pakistanka oo hantida kule maxaan ku radaa Shabeellada Hoose iyo Talyaaniga anaga u baahnin awyaasheen waxay garteen man garan wayna anaga
soomaali iskaba dhaafi ajaanib aan u baahannahay waxaad arki doontaan norwegian oo maxaa shabeellaha soo dega talyaani oo waaba degana talyaani qaraabaan banhay waxaa laga yaabaa inay soo degaan Swedish inay Ingiriiska soo degaan hadda waxaa laga yaabaa kambaniyal tiro badan oo Ingiriis isugu jiraan iyo Norway inay shabeellaha ku socdaan laakiin aniga intaan joogo ninkii rag iska saara liiri waxaan ku dadaalaa shanta Soomaaliyeed horta gobolka say u deganaa inay u deganaadaan Soomaalina midnimada inaan ka shaqeyno ayadoo laakiin alqawi yakulu daciif aysan ahayn sida hadda ka hor ka dhacday oo qofka hantidiisa iyo xoolihiis inuu helay ee xuquuqdiisa aniga marka warkayga gunaanadkiisa waxa way gobolka inaad imaada cilmigiina laga faa'iido aqoontiina laga faa'iido ragnimadiina laga faa'iido oo energy-giina laga faa'iido lacagtiina laga faa'iido waxaanu mudane CD codaalkiisana uu sii noqdo mid uu sii mari doono qaybo kale oo dalalka Yurub kamid ah waana markii ugu horeysay intii ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya muddadaasi sanadka ah ay ka talinaysay dalka Soomaaliya uu gudoomiye gobol uu soo gaaro dalka Norway xasan saciid xasan raasta SNTV magaalada Oslo